jidka in la ilaaliyo nadaafadiisa la ilaaliyo jajabkiisa la ilaaliyo waxaad arkaysaa jidkii aan la furin nin intuu halka ka soo galo meeshii la sameeyay jabinayo jiiraya waa khalad taana dawladda amarka bixin karta qurbo jaag baan nahay waaga wadanka imaanay ma lahayn laamiyadan oo maaragta la sameeyay hadda 5 iyo 6 baa u maleynaya inta jooga in la sameeyay ma sha Allah tabarakallah waan ku faraxsanahay waxaan macnaha in dawladda iyo shacabka ugu baaqaya in wadankooda dhistaan horumar geliyaan haddaan wadanka anaga iska leh inaan wadankeena dhisno qurxino hagaajino qof kasta asaga wadankiisa dhista wadamada lagu yaacayo dhalinyarada inaan ku yaacin oo wadanka u soo jeesadaan wadankooda dhistaan ka shaqeystaan maal geliyaan intaas aan ku daraya magaaladan Garowe Soomaaliya waa magaalada ugu wadooyinka qurux badan baa la yiraahdaa wayna ka muuqataa markii la fiiriyo intaas oo isgoys oo isku soo dhacaya marka dadka reer Garowe oo khaasatan magaalada degan waxaan leeyahay wadooyinka aan ilaalino kuwa laamiga iyo kuwa rafka magaaladu markii wado ay raf tahay oo xaafadaha magaalada ay ku taalo badanaa waxay la yimaadaan anaga laamiyadu waa nagu yar yihiin noloba mariyo waa kaas laakiin wax muddo qofka markii laamigi la mariyo xaafadda laamiga ay hesho inaysan priority laamigu lahaa aysan siinayn iyagoo qashinkii iyo biyihii wasaqda ahaa iyo waxba aan uga aabayeelayn runtii waxaan aad ugu hambalyeeynaa waaxda fayadhowrka oo degmadu ay sameysay oo aad u ilaalisa bilicda laamiyada waxaan faraynaa bulshada kow inay ilaaliyaan oo nala ilaaliyaan laamiga inay laamiga dayaca soo gaaray ka ilaashaan inaysan biyaha ku sayrin inay wasaqda ka ilaashaan inay dhirta ku hortaala ay beeraan si ay u harsadaan dadka masaakiinta maraya iyagoo faacaysa inay caruurta ka wacyigeliyaan inaan laamiga dhexdiisa aan kubad lagu cayaarin inay caruurtu laamiga iska fiiriyaan labada dhinac waaridku waa inay nala qaataan tan xigta layrarka guri walba ku soo jeeda waxaan farayaa inuu layrku hor xiro layrku mar aduu bilic ku yaamni ku yaa gurigaagu amni yahay mar dadka muslimka ee maraya baa waxay ku marayaan amni waxaan faraynaa bulshadeenu inay nala gartaan horumarka ku socoto degmada Garowe iyo jidadka ay nasiibka u heleen ayna dhici doonto biyaha ay dhahaan laamiyadu waa nagu soconeen internet loo sameeynayo biyihiina barnaanka laga geynayo inta ka horeysa wiilka yarka ee gaariga ku dhaqaya oo wiilku intuu gurigiisa kala soo baxo gaariga uu ku dhaqayo biyaha guriyaha hortooda iyo hoteelada laga soo deynayo waxaan faraynaa inay joojiyaan arrimaha bulshadu waxay leedahay qayb faydhowr oo u taagan meeshii biyo yaalaan iyo meeshii biyo lagu daadiyo inay markiiba ka jawaabaan bulshadu hanala qaadato waxaanu farayno waxaan idinku wacyigelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar koowaad inaad nala qaadataan waxyaalaha danta inaga inoo wada ah qofkuna waxa la lahaanshuhu bulshada ka timaada waxaan idinka la idin qabtay dawladdu male idinku ilaashada oo dayaca iyo darxumada ka ilaasha oo amnigiina guriyeena hortiisa layriya oo muxuu ahayto luuqiyada iska xira amni darra idin keenaysa intaasaan oran lahaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh